wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka G7 ayaa waxay ku shireen magaalada Taormina ee dalka Talyaaniga waxaana ay ka wada hadleen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin arrimaha argagixisada iyadoo lagu soo qaaday weerarkii dhawaan ugu dambeeyay ka dhacay dalka Ingiriiska iyo sidii horumar looga sameyn lahaa isbeddelka cimilada iyo ganacsiga caalamka waxay ku baaqeen wadamada ugu awooda badan adduunka G7 dagaal ka dhana kooxaha argagixisada waxaana ay tusaale u soo qaateen weerarkii dhawaan ka dhacay dalka Ingiriiska waxaana ay ku hesheen in loogu tago meelaha ay joogaan ama ay saldhigyada ku leeyihiin kooxaha argagixisada oo aan la sugin inay dhibaato ka geystaan oo loogu yimaado dhulkooda sida mid ku dhacday hadda magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska sidoo kale waxa ay soo qaadeen arrimaha isbeddelka cimilada adduunka waxay ka jawaabeen madaxda G7 codsiga uga yimid ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May iyadoo dalkeega la weeraray habeenkii Isniintii weer lagu qaaday meel ay lagu dhigay concert ama xaflad oo ku taala magaalada Manchester waxaana ku dhintay 22 qof weerarka oo ay ku jiraan caruur yar yar waxaana lagu sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen kooxda Daesh si kastaba ha ahaatee madaxda G7 ayaa waxa ugu weyn ay ku soo qaadeen shirkaasi waxay ahayd dagaalka ka dhanka argagixisada iyo isbeddelka cimilada madaxweynaha Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa qaray inay tahay muhiim in laga tashto dhibaatada kooxaha argagixisada ay caalamka ku hayaan waxaa saxaafadda loo sheegay in la ilaaliyo qodobadii ka soo baxay shirkii Paris ee looga hadlayay isbeddelka cimilada ee ka dhacay waddanka Faransiiska sidoo kale